السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو soo noqod wanaagsan walaalayaal. halkan waa cashirkeeni adiga aynu socdo insha Allah ku soo dhawaada cashirkan. Maanta waxaan in hayaa cashir aad u xiiso badan insha Allah taala ka kooban oo arday badan baa waxaan ku raadin mar walba iga codsato maxaa ay sheegan grammarka bal in lagu soo daro insha Allah taala. inta ka hor waxaan rabaa insha Allah taala ardayda inaan ogeysiiyo ama mar walba xasuusiyo fadlan haddii aad nala joogtay like the saar share de dhiirigelinayna insha Allah taala like the share inoo sameeysa share macaamiisha inoo badan insha Allah taala inta macalinku caawi haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe de gambaleelka riix oo weliba meesha all ka sii taaba insha Allah taala si casharada ayna ku seegin dhamaan ay ku soo wada dhici doonaan haddii aad dad nagu cusub tahay subscribe de gambaleelka riix all halkay ku qoran si taaba insha Allah taala maanta waxaan hayaa cashirkan do iyo das insha Allah taala do and das waa grammar waa ereyada ugu asalka ah mesela markii basic laga soo bilaabo insha Allah taala markii cashirka uu weynaado tense waxa la qaadanayo insha Allah waan arki doonaa qaabka loo isticmaalo loo kala habeeyo laakiin hadda si basic ah ayaan u diyaarinaa insha Allah taala qof walba ila soco waa basic waa below laba qaab baan kugu kala saari doonaa si fiican u fiiris insha Allah taala sidaas simple and clear ugu isticmaasho waan cashirkan bilaabaynaa use of do and das use of do and das use isticmaalka of do sida loo isticmaalo and iyo weliba das sida loo isticmaalo baranaynaa asal ahaan ereyga waa do ayuu marka hore ahaa do-da ayaa erey macnaha ficil ah asal ahaan macnaheeda waa macnaha waa samayn weeyaan qabasho weeyaan daastana waxay ka timid do-dan ay ka timid oo bedel ayay ku imaaday insha Allah taala waan baran doonaa bal haddaan eragna marka dadka markii muxuu ahaay waxaan leenahay meeshan we can define on ku qeexi karnaa we anaga kan waxaan awoodnaa define inaan qeexno the use isticmaalka of these words ereydan into two ways laba qaab aan ku qeexnaa insha Allah taala two ways laba hab ways waa hab ama qaab ko when markii they ayaga ay yihiin used kuwa loo isticmaalaya with nouns they are used with lala isticmaalaya with marka isticmaasho lala isticmaalaya weeyaan when markii they ayaga are used with lala isticmaalaya nouns magacyada we can say waxaan dhihi karnaa das is used waxa loo isticmaalaa for one person hal qof or amana one thing mase hal shay hal qof markaan ku leeyahay waa qofka aad soo qaaday mesela qof marka la yiraahdo waa singular ama mufrad weeyaan keli weeyaan keli مثلا محمد oo kale wiil oo kale gabar oo kale macnaha marka saas oo kale leedahay nin naag saas marka leedahay hal qof weeyaan oo مثلا niman aad ahda lama rabo wiilal aad ahda lama rabo macnaha waa nin wiil saas oo kale macnaha think marka shayna waa shay sida computer oo kale miis oo kale ma waa isha table chair mouse something like that marka hal shay aad sheegaysa ayaa la isticmaalayaa مثلا marka daas la qaadanayo markaas do waxa loo isticmaalaa used with macnaha do is used waxa loo isticmaalaa for more than wixii ka bata one person hal qof oo ama sane one thing mas hal shay one bana hal مثلا meeshii wiil ee hadii wiilal laga dhigo you use do laakiin before when you have wiil markaad haystay daas baad isticmaalaysaa hal wiil markaad leedahay markay laba wiil noqdaan do baad isticmaalaysaa wiiladan ka arki doonaa insha Allah taala used waxa loo isticmaalaa do for more than wixii ka bata macnaha more badan than ka way more than ka badan kaada marka waa dantaas dantana kaada ka badan marka leedahay more than one macnaha more than one person afwan halkan halan aan one iraahdo waan ka booday insha Allah taala afwan excuse me more than one person hal qof oo ama sana one thing masa hal shay wixii ka bata ayaad do u isticmaalaysaa look at these examples tusaalooyinkan fiirada waxaan leenahay the boy one hal xab markuu yahay the boy wiilka does not play ma ciyaara ee ball balloon the boy wiilka does not play ma ciyaaro ee ball balloon ma ciyaaro waa hal wiil this man ninkan does not speak ma ku hadlo French Francisco ma hadlo does the dog mew eigu is back is does the dog mew eigu back does the dog mew eigu back at night habeenkii mew habeenkii mew yeeraa eiga habeenkii mew does mew the dog eiga back at night habeenkii
my sister walaashay daas waxay qabataa shopping ama daas waxay samaysaa shopping adeeg every day maalin walba what maxaa does the baby cunuga feed uu quutaa waka hal macnaha waxaan ismaalay the boy wiilka the man ninka the dog eyga my sister walaashay the baby cunuga all waa keli weeyaan keligaas ayaa daas qaadanaya dhowr nooc loo isticmaalo insha Allah taala hadda keli waxaan ku tusayaa sida loo isticmaalo negative question form negative form and even maxaan ku affirmative inta waa loo isticmaalaa affirmative waa loo isticmaalaa orka oraahyo waa loo isticmaalaa su'aalaha loo isticmaalaa diidmaha loo isticmaalaa ama laakiin hadda taas way noo damaynaysaa insha Allah taala waxaan ku tusayaa qaabka dadka si u qaataan baan ku tusayaa bal si fiican u fiiri insha Allah taala more than one wixii hal ka badan san yeelaya meeshii the boy andahay jamac iga dhig the boys wiilasha do not play ma ciyaaraan ee ball balloon mana the boys maadaama jamac noqdeen do baan isticmaalaya hadda insha Allah taala do ayaan isticmaalaya the boys wiilasha do not play ma ciyaaraan ee ball balloon these andaka keena this bay aad wiilka this waa kana this alboa this man ninkan halkan maxay these men nimankan man waxa lagu jeedaa markii eedaas loo bedelo niman badan ma laga rabaa these men nimankan do not speak kuma hadlaan French Francis kuma hadlaan these men nimankan do not speak kuma hadlaan French su'aal marka ka dhigayso do aad hore soo maraysa ama daas ayaa hore la soo dhigtaa maxaa leedahay do the dogs miyay eeyalku baan ku tasaway jamac do the dogs miyay eeyalku back ayaan at night habeenka miyaan do miyay the dogs eeyalka back at night do the dogs back at night habeenka miyaan our sisters walaalaheena my sister bay hal gabar bay ahayd hadda waxaan leenahay waxeena my sisters our sisters walaalaheena do waxay sameeyaan shopping adeeg every day maalin walba our sisters walaalaheen do shopping way soo adeegaan every day maalin kasta aan leenahay what do maxaa u sinaynaa sisters ee jamaca what maxaa do the babies caruurta feed ay quutaan what do the babies caruurta awal baby ayad hal anug bay halka fiiri baby bay ahayd what does the baby feed das bad siinaysa halka anug laakiin ilmihi way bateen what maxaa do the babies caruurta feed ay quutaan number 2 marka qaybta labaad waxaan leenahay when markii day ayaga I used la isticmaalaya waa do idaas baan ka hadlaynaa when marka day ayaga oo do idaasa I used la isticmaalaya lala isticmaalaya with pronouns magacuyaalayaasha pronouns magacuyaale we can say waan dhihi karnaa waxaan dhahaynaa do is used with waxaa lala isticmaalaa I aniga we anaga you adiga they ayaga maxaan ku dhahay do is used with waxaa lala isticmaalaa I aniga we anaga you adiga they ayaga das is used with waxaa lala isticmaalaa is used with tan lala isticmaalaa he asaga she ayada it asaga oo xayawaanka ah intaas ayaa waxaa leedahay pronouns waa 7 weeyaan pronouns oo magacayaal weeyaan das is used with waa lala isticmaalaa he she it he waa asaga she ayada it asaga I aniga we anaga you adiga they ayaga intaas ayaa loo isticmaalaa insha Allah taala doona waxay leedahay afarta kore I we you they ah dasna markii he she it saddexdaas leedahay look at the following examples saliifan soo socdo marka one hal xaba he asaga oo he marka la waxay la mid tahay the boy adoo yiro kale way ama abdi oo kale way adoo yiri he does not play ma ciyaaro a ball balloon he asaga does not awal maxaan soo dhaanay the boy does not play so man sidoo kale he baa leedahay magacayaal wiilkiisa dhaafaysa waxaad u yeelanaysaa magacayaal ka qaadanaysa meesha the boy dhileed he baa dhaysa he asaga does not play ma ciyaaro a ball balloon does she ayada miyay gabadhi speak ku hadasha French does the girl bay ahaan leedahay like hadda maxaad tirahda does magacayaal kasta she baa dhaysa pronoun way does she speak French Francis may ku hadasha does she speak French waa su'aal markii daas hore ku martaa ma dhuuda su'aal baa laga rabaa does it asagu eega back miya at night habeenkii awal muxuu ahaa does the dog back at night habeenkii miyuu cabaaya sumeyn does it back at night habeenkii miyuu ciyaa saas weeyaan more than one hal wixii ka badan more than ka badan one hal xabo wixii ka bata ayaan leenahay waxaan leenahay I do not play ma ciyaaro a ball balloon we do not like ma jeclin games ciyaaraha what maxaa do you adiga do aad qabataa where xagee do they ayaga live ay ku nool yihiin
do maxaa isticmaalay I do bay qaatay I do not play a ball ani banoon ma ciyaaro ayadaas kale we annaga do bay qaadanaysaa waa baran oo magacyada wey we do not like games annaga ciyaaraha ma jeclin what maxaa do you adinku ama adiga wayuda do aad samaysaan what do you do do da marka halkan jirta waa kii hadda aan barayno helping verb oo ma verb ah do da marka intiisana waa main verb waa ficil weyne weeyaan marka what do you do maxaad samaysaa kan waa helping verb kana waa main verb saas kala duwan yihiin what do you do kan waa ficil caawiya kana waa ficilkii la caawinaya hawshii la qabanayo way tusaya what do you do maxaa qabataa where xagee do they ayaga live ay ku nool yihiin where xagee do ayay they ayaga oo dadkii ah live ku nool yihiin baan leedahay marka insha Allah taala guud ahaan labada erey waxa loo isticmaalaa do iyo does asal ahaan do waa main verb action weeyaan markii qaabkan loo isticmaalo waxa laga saaraa main verbnada waxa laga dhigaa caawiya ama helping verb markaas waxaan arki doonaa iyadoo loo isticmaalaya negative form aya interrogative macnaha ii sheeg muxuu interrogative or question form su'aal ayadoo laga dhigaa marka insha Allah taala intaas ka bacdi waxaan leenahay insha Allah taala an is thank you very much